gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish ayaa xarunta aqalka dowladda hoose ee xamar ku qaabilay danjiraha dowladda Itoobiya oo fadhiya dalka Soomaaliya Ambassador Cabdilfataax Cabdullaahi Xasan oo dhawaan dowladdiisa ay u soo magacaawday dalka Soomaaliya kulanka ay yeesheen gudoomiyaha gobolka Banaadir ku xigeenadiisa iyo sidoo kale ambassadorka dowladda Itoobiya u soo magacaawday ayaa waxa ay kaga hadleen xaaladda labada dal iyo sidoo kale iskaashiga labada dal dhaxmari doono dhanka kale maamulka gobolka Banaadir waxa uu si qaas kala hadlay safiirka sidii dowladda Itoobiya ay uga qayb qaadan lahayd horumarinta caasimadda Muqdisho iyo sidoo kale sidii ay isku dhaafsan lahaayeen labada caasimadood Addis Ababa iyo sidoo kale caasimadda Muqdisho waxyaabaha muhiimka u ah haddaba kulanka kadib waxa warbaahinta la hadlay Xiiri Axmed Rooble xogahayaha maamulka gobolka Banaadir oo warbaahinta la wadaagay kulanka dhaxmaray maamulka gobolka Banaadir iyo safiirka Itoobiya oo soo magacaawday dalka Soomaaliya. bismillaahir rahmaanir rahiim waxaana soo xarunta dowladda hoose Muqdisho nagu soo booqday safiirka dowladda Itoobiya u fadhiya Soomaaliya Cabdilfataax Sheekh oo dhawaan la soo magacaabay sida caadadu ay tahay markii safiir wadan loo soo magacaabo waxay soo booqdaan ama lagu soo dhaweeyaa magaaladaas markaas wadanka caasimadda meesha ay ku taalo safiirka ayaa xarunta nagu soo booqday ka mahad celiyay maaragtay soo dhaweyntii uu u fidiyay gudoomiyaha gobolka Banaadir aan duqa magaalada Mr. Cumar Filish iyo maaragtay intii shirka kala qayb gashay oo gudoomiyaha ku-xigeenka arrimaha bulshada iyo anigaba aan ka qayb ka ahayn safiirku wuxuu si guud uga hadlay mahad celintii ka sokow xiriirka ka dhaxeeya labada dal Soomaaliya iyo Itoobiya oo dad walaala oo muddo dheer xiriir lahaa oo daris wanaag ku wada nool safiirka waxa kala oo maaragtay uu kala hadlay in Itoobiya hadda ay ka socoto in la dhireeyo intaas 7 milyan oo dhir in magaalada ay Addis Ababa ama Itoobiya lagu abuuro qaas ahaan wadamada diriska la ah Itoobiyana maaragtay 1 milyan oo geed lagu beero si wax looga qabto bii'ada si halaabaysa in wax looga qabto taasna ay ka dhireyntiina ay ka bilaaban doonto maaragtay magaalada Muqdisho oo hadda oo ay ka bilaabi doontaan 1 milyan oo geed waxa loogu talagalay inay maaragtay wadamada oo diriska la ah laga bilaabo waxa kale oo lagu wada hadlay oo safiirka aad ugu nuucsaday in uu ay dabcan ka faa'iideysashada labada dal oo walaalaha wax kasta oo xiriirkooda si wanaaji kara dhanka maamulka gobolka Banaadir oo hogaaminaya duqa ayaan asigana soo dhaweeyay safiirka oo uga mahad celiyay waqtigiisa uu ku soo booqday xaruntiisa sidoo kalena gudoomiyaha wax badan oo taariikh badan oo maaragtay soo jireynayo labada dal ka hadlay soona dhaweeyay waxa laga hadloo kale in la mataaneeyo magaalada Addis Ababa iyo magaalada Muqdisho oo la dhaafsado aqoonta iyo waxyaabaha maaragtay sida ay magaaladii Addis Ababa loo hormariyo kale in loo hormariyo magaalada Muqdisho hadii ahaaleed mararka roobabka ay da'aan sidii drainage ama meelaha biyaha ay maraan si loo xakameey lahaa taasuna uu safiirka uu ka shaqeeyo safiirka gudoomiyaha asigana soo dhaweyn dabcan in Itoobiya iyo hadda Soomaaliya ganacsi toos ay bilaabeen in labada caasimadood iyo ama labada wadanba uu ganacsigooda uu sii furmo haddana uu maaragtay uu meel fiican oo bilaaw fiican uu yahay waxa kale oo maaragtay gudoomiyaha uu aad uga mahad celiyay in uu safiirka oo nin Soomaali Itoobiyaan ah oo Soomaaliya ku hadlayo uu matalayo dalkii Itoobiya taasina ay micna gaar ah oo walaaltinimo oo dirisnimo ay u leedahay dabcan safaaradda waxa jirtay waxyaabo safaaradda hadda inay maaragtay meel ay degan tahay xafiis ku leedahay ay cusotay maaragtay in dhul la siiyo ay ku shaqeyso oo maaragtay meesha hadda ay ku taala meel ugu wanaagsan maaragtay ay sidii servicekii ama fiisooyinkii marka la soo bixinayo si accesska dadka safaaradda tagaya ay ugu fududaato taasna gudoomiyaha uu ka ballan qaaday inay isla fiiri doonaan meel dhul ku haboon in safaaradda la siiyo oo ay dhistaan si ay maaragtay uga la mid noqdaan safaaradaha kale oo maaragtay oo wadanka jooga
maamulka gobolka Banaadir ayaa wada dadaalo lagu horumarinayo caasimadda Muqdisho iyagoo kulamo kala duwan la qaatay safiiro kala duwan oo dalalkooda ay u soo magacaawday Soomaaliya. Cabshir Cabdullaahi Amiin, Nabad TV, Muqdisho.